waalid mid ka mid a muuqaalada ugu faafidda badan ee loogu daawashada badan yahay maanta Mareykanka waxa weeye haweeney caddaana oo askariyad ahaan jirtay ayaa waxay samaynaysaa tijaabo ay eegayso diimaha dadka u nasab sheegta iyo si u kala naxariis badan yihiin. waxay wacaysaa kaniisadahoo dhan, kaniisado aad u badan. xagga dambana waxay ku samaysay sawaxan ilmo qaylinaya. markaasi kaniisadaha leedahay ilmahaygiibaa ooyaya, caanana uma hayo. oo wataa Trump bahalkii EBT la oran jiray Stanfordka joojiyey, fadlan caano isiya ilmaha aan siiyo. kaniisadaha oo dhan waa kuwa eriyey, kuwa ku damiyey iyo kuwa yiri nambarada kale la xidhiidh. cidda keliya ee markay wacday iyadoon su-aal weydiin, hadal la ku soo celin, xaggee joogtaa, noo kaale, xaggeen kuugu keenaa yidhi, waa masaajidka markay soo wacday. alxamdulilah, masaajidka markay soo wacday ay maqleen ilmo ooyaya, xaggee joogtaa, ma noo iman kartaa, xaggeen caanaha ilmaha ugu keenaa baa lagu yidhi. waxaa cajiiba marka maanta xilli cunsuriyiinta xag jirka gees ilaa ka gees ay sumcad dil ku wadaan islaamka, in dadka ay la dagaalamayaan muslimiinta haddana dadka ugu naxariista badan. naxariista iyo gargaarkaasu ma aha mid aan sumcad ku raadinayno, ma aha mid aan leenahay ku soo jiita dadka muslimiinka ka dhiga, ma aha. ee iyada lafteeda waxay tahay tiir dhan oo tiirarka diinteenna ugu waaweyna. masaakiinta oo la caawiyo, diintay dooni ha lahaadaan. ilmo ooyaya qof muslimna kama adkaysanayo. waxaa cajiiba marka tusaalahan ay haweeneydan tijaabo ahaanta u samaysay inuu maanta yahay midka ugu faafidda badan Mareykanka, 100 milyan oo views oo marayo. alxamdu lillahi alladii hadaana lihada wamaa kunna linahtadiya lowla an hadaana allah. waxaa mahadle allaha nagu sugay, nagu hanuuniyey habdhaqankan quruxda badan ee islaamka la yidhaah. ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu nagu sugo oon ku noolaano, oon rabbigeen kula kulanno. qof walboo muslima markaad naxariis u samayso qof kaleod ilaahay dartii ugu samayso, alle subxaanahu wa tacaala noloshaadana waa barakayn, aakhirana abaal fiican baad kaga heli. jazaakum allahu khayran.